madaxweynaha Somaliland ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay xukuumaddiisa. warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray wariyaheena. war-saxaafadeed goordhaweed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland oo nuqul ka mid ah soo gaadhay xafiiska warqabadka Somali Cable ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhignay sida tani. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo xilka qaadis magacaabid iyo isku bedel ku sameeyay xubno ka mid ah xukuumaddiisa waxaana u dhignay wareegtadu sida tani. ku socota Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Diiriye Guri Barwaaqo wasiirkii hore ee warfaafinta iyo wacyigelinta ee Somaliland Ciise Axmed Yuusuf Cabdalle wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Muuse Abees wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Somaliland mudanayaal sidaas aad la socotaan baa la yidhi xilka qaranka ayay sumadiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba cidii hanan karta sidaa darteedna waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad u hayseen ee kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalkani qaranka ujeedo xilka qaadis agaasimayaasha guud ku socota Jamaal Cabdillaahi Maxamed agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga ku socota Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye agaasimihii guud ee hore wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Cabdikariin Xuseen Siciid agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudanayaal sida aad la socotaan baa la yidhi xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaa daraadeedna waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta idinka qaado xilalkii aad u hayseen qaranka waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalkaasi ujeedo xilka qaadis wakiilada ku socota Xasan Hirad Yaasiin wakiilkii hore ee Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta ku socota Ayaan Le Salaad Diiriye wakiil ku-xigeenkii hore ee Somaliland ee dalka Kenya waxa uu yidhi mudanayaal sida aad la socotaan waxa xilalka qaranka ay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo laga bilaabo taariikhda maanta waxaan idinka qaaday xilalkii aad u hayseen qaranka magacaabid wareegto madaxweyne markaan arkay ayuu yidhi dastuurka jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo way aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkani markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkani Cabdiqani Maxamuud Caate iyo Fariid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Cismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka Cabdiqaadir Cumar Jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamaal Cabdi Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Cabdillaahi Siciid Khaawi agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Muniir Xaaji Cabdillaahi Abusite wakiilka Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Sharmaake Axmed Maxamed Geele wakiil ku-xigeenka Somaliland ee dalka Kenya Maxamed Cabdillaahi Ibraahim gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer alla mahadle war-saxaafadeedkani ka soo baxay qasriga madaxtooyada Somaliland ayaa waxa ku seexnaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Khalid Fantastic Somali Cable TV Hargeysa